waxyaabaha qaar marnaba ma habboona inaad cid la wadaagto arrin aad sheegto ayaa laga yaabaa inay saameyn xun ku yeelato noloshaada. waxaa jiro waxyaabo marka aad la wadaagto dadka qiimahaaga baabi'iya. haddaba si aad uga digtoonaato arrimaha, iska ilaali inaad cid la wadaagto arrimahan soo socdo. hadafyada ugu weyn ee nolosha ka leedahay. hadafkaaga ama goolasha ugu weyn ee aad leedahay hala wadaagin qofna. waxaa jiro sababo ay qasab u tahay inaad iska ilaaliso la wadaagidda dadka kale yoolkaaga. marka aad u sheegto dadka goolashaada oo ay kugu dhiirigeliyaan ama ay kugu ammaanaan, kadibna waxaa dhacda inaad isdhigato oo aad isku qaadato sida inaad gaartay oo kale. taana waxay keeni inaad bajoojiso dadaalkii aad ugu jirtay gaaridda yoolkaaga. haddana dhanka kale, haddii aad u sheegto dadka oo ay wax xun kaaga sheegaan, waxaa dhacayso inaad banaacdo wixii oo dhiirigelintii aad waxa ku qaban lahayd ay kaa lunto. si aad kolba uga cagajiidayso ayaad ugu dambayn kusoo gabagaboobi inaad iska dayso. sidaa awgeed, marnaba xal ma ah la wadaagidda yoolkaaga dadka kale. saamayn xun ayay kugu lahaan. beddelkii aad ka fikiri lahayd sidii aad u gaari lahayd, waxaad maanta oo dhan ka fikiri oo kugu soo noqonaya hadallada dadka. kuwii ku dhiirigeliyey markaad soo xasuusato, waxaad isku qaadan sida inaad xaqiijisay, halka kuwii wax xun kaaga sheegay in ay kugu sababayaan inaad wixii nac u qaado. waxaa halka ka soo baxayso suurtagalnimo weyn oo muujinaysa inaadba gaari doonin haddii aad la wadaagto dadka. si waxaa oo dhan ay kugu dhicin, ku dadaal goolashaada inay adiga kugu koobnaadaan. ha sheegsheegin ama ha la wadaagin dadka waxyaabaha wanaagga ayaad u qabato. aad ayaa looga fiican yahay sheegsheegidda arrimaha wanaagga aad qofka u qabatay. waxaa xayada ka qaadayo oo qiimo tiraayo sheegsheegiddaada. isku day in adigoon aad ogaato waxyaabaha wanaagga ayaad u samayso dadka. maxaadba uga baahan tahay inay dadka ku ogaadaan? adiga noloshaada ayaad u nooshahay walaal. maxay kugu soo kordhin isfaanin aad isfaaniso ama ha ku ogaadaan dadka aad istiraahdo. arrimaha qoyska. arrimaha qoyska waxay ku fiican yihiin keliya inay qoyska ku koobnaadaan. ka waran haddii aad la wadaagto dadka kale, waxaad ku weyn qiimahaaga shakhsi ahaaneed. waa wax laga xishoodo in aad qoyskaaga ka xog waranto. isku day inaad qofna la wadaagin arrimaha qoyska u gaarka. qiimaha aad dadka agtooda ku leedahay ayaa lumaaya. qofka ka sheekeeya qoyskooda, dadka waxay u arkaan inuu yahay qof doqon lagarooni ah. dhowro sharaftaada, ilaali arrimaha qoyskaagana. sirtaada ha ku koobnaato naftaada, qofna ha la wadaagin. runtii waa arrin halis ah inaad sirahaaga la wadaagto dadka kale. dhibaatooyin badan ayaa kaaga imaan kara. dhibaatooyin noloshaada saameyn ku yeesha ayaa kaaga imaan kara. ku dadaal inaad ilaashato sirahaaga aad qofna la wadaagin, xitaa qofka aad aadka ugu kalsoon tahay. dadka waa bilo-aadin, wax walba ayaa iska dhici kara. waxaa laga yaabaa inaad qofka isku dhacdaan oo uu kaaga aarsado, kadibna ay dhacdo in sirahaagii sidaa ay ku faafaan. marka ilaali sirahaaga. naftaada wax uga quman ma jiro inay sirta ku ilaaliso. siraha dadka kale. dabcan qodobkan waad dareemi kartaa. haddii ay dhacdo inuu qof kuu sheego sir, wax walba oo dhaca ilaali sirta. keliya adigii qofkii kuma kala dhimanaysaan haddii aad sheegto sirta. waxaad sidoo kale dhibaato u soo jiidaysaa qofka kale. aaminaaddii uu kugu qabayna halka ayay ku dhammaanaysaa. noqo qof mas-uul ah oo ilaali siraha dadka ay kugula wadaageen. aaminaadda iyo kalsoonida ay kugu qabaan. meelaha aad ka daciifsan tahay. qof walba waxa uu leeyahay meelo uu ka daciifsan yahay ama uu ka tawardaran yahay, oo haddii laga soo maro ay bes tahay. ha la wadaagin dadka meelaha aad ka jilcan tahay. adiga ayaa lagu isticmaali karaa oo lagaa soo weerari karaa. saaxiibka maanta ayaa noqon karaa cadowga beritoole. dunidan way isbedeli kartaa. sidaa awgeed, iska ilaali inaad bixiso hub laga yaabo in hadhow lagugu waxyeeleeyo. noloshaada shakhsiyeed. qof walba waxa uu leeyahay noloshiisa u gaarka. qof walbana tiisa ayaa qusayso oo uu ka fikiraa. yeena noqon noloshaada goob shah lagu cabo. ha ka sheekayn noloshaada. waxyaabaha quseeya noloshaada gaarka ah adiga ayay qaas kuu tahay.